toddoba dal oo muslimiina la weeraraya toddoba dal oo muslimiina la weeraraya marka ay waa maxay sababtuna sababta anugu baqlayma sheegin buu yidho garan maayo waa toddobadee waa Iraq Syria Lebanon Libya Somalia Sudan Iran toddobadiiba hadda waa la weeraray waqtigan ka warramayno yani toddobada ay sheegaynaba toddobadaba waa la weeraray waqtigaasi kadib saashay isweydiinta le waxay tahay reer galbeedku maxay naga rabaan dad ducafaa oo masaakiina waa waxba yeelayn oo meel cidla iska fadhiya maxay ku falayaan oo ay ku xoog badan yihiin dilistooda waxay yidhaahdaan reer galbeedku waxay rabaan waxay u bixiyeen nimankaasi toddobadan wadan weeraraya alfawda alkhallaaqa waxay yidhaahdeen kaws baanu ka rabnaa meesha tan ama si kale haddaan u tilmaamno waa taqsiim ilmuqasam markii hore Sykes Beacon waa la googooyo wadamana yaryar baa laga dhigay markii la hubiyey mid waliba inuu iyaga ku xidhan yahay ayaa haddana waa la googooynayaa mar kale ayaa googooyntii soo noqonaysa oo maxaa laga rabaa waxay leeyihiin waxa la doonayaa inay noqdaan alfawda alkhallaaqa creative chaos waxay yidhaahdaan oo waa maxay macnaheedu waxa weeyaan bay yidhahdeen decentralization then the government will be the UN bay yidhaahdaan waa in wadanada tan dowladnimadooda la baabiyaa decentralizer laga dhigaa cidda ka talinaysaana waa inay noqotaa UN-ta maanta Soomaaliya ayaa ka taliya dowladaynu inagu markaynu wada hadlayno isu sheeganaa dowlada iyo gobollo iyo waxbaynu sheegnaa dowlad kasta iyo gobol kasta afar wasaaradood oo ka midiba hay'ad UN-ta baa wax siisay hoos tagtaa waxay samayn kartaa ma jirto inay hay'adda ku noqoto mooyaan dhowr wasaaradood UNDP baa u taliya dhowr wasaaradood UNESCO u talisa dhowr wasaaradood Save the Children baa u talisa dhowr wasaaradood kuwa qaxootiga u taliya hay'adka UN-ta ma yiraahdaan meeshan anaga xukunna laakiin afar wasaaradood hay'adda ku xidhantoo ka taliyaan waa dhammaan Soomaaliya dacal ilaa dacal wasaarad kasta afar wasaaradood kasta waxay ku xidhan yihiin hay'ad kuwaasi ka mid ah waa decentralization kay sheegayeen ee ah dabeetana governmentku inuu UN-ta noqdo waxay yidhaahdeen markii hore dowlado centralized ka jiray iminka waa in federaaliyad loo bedelaa bay yidhaahdeen federal states Iraq waa la googooyay federal states baa laga rabaa Soomaaliya waa la googooyay federal states baa laga rabaa Libya waa la googooyay federal states ma wada noolaan kartaan baa la wada leeyahay Sudan waa la googooyay intii soo hadhay hadda lagu sii wada Suuriya hadday kawaan ka saarantay qoladii hore shiicadii waa laga saaray imika dheriga loo karinaya ilaahay setooda kama dhigo imika dheriga loo karinaya in shan gobol laga dhigo duwaylaadka markii loo qaybiyaa yuhuud meel laga siiyay marka hore imikana marka duwaylaadka loo sii qaybiyo inta hadda loogu daraya saasha isweydiinta le wax weeyaan maxay naga rabaan waa maxay waxaynu yeelay naga doonayaan waxay yidhahdaan reer galbeedku isku dan qurayn oo lama wada dagaalamayo qolo diin bay u dagaalamaysaa oo hay'adkoodan masiixiga iyo saxwadoodan dambe kristanka evangelistku u badan yihiin iyo waxaan oo dhami iyagu diin bay u dagaalamayaan ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا بتاغيين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم كوا سوى الدين قل يا كلا وحيود دغالما يندق على أهان وعالم الإسلامي لما الشيبة لقربه بشر متدربة قف بني آدم وحلا بران دولة خرج كجبحن هل تصالان نسيو يروب مركي لا اسكو فري ايا بولن waxa ka dareeray dadkoodii aqoonyahanka ahaa way lacag badan baa lagu hayaa Yurubta galbeed dabeetana dhaqaatiirtii injineeradii wixii baa Jarmalka u guuray Jarmalka ay lacag badan ka sameynayaan dawladda Poland waxay soo xisaabtay qof walba wixii kaga baxay dabeetana Jarmalka ay ku ashtageysay lacagta inta lagu soo celiyo hadduu dadkii qaatay dadkaanu soo saaray intaasoo kharashka ku baxday dadka qaatay soo celi
yurub baa la isula tegey jarmalkaa lagu xukumay inuu lacagta dees ka bixiyo ilan dadkan dad baa wax bartay iyadoo halkaa maraysa ayaa suuriya durbaanka dhabarka laga dhuftay 1 million people oo dhakhaatiir leh oo injineer leh oo wax walba labay heleen booliskii waxay dhahdeen kaxaysta dadkiina uma baahnine waxaa la helay badiilkii oo laga keenay xagee laga keenay suuriya baa la helay idan bashar mutadarriba way u baahan yihiin way dhali waayeen dhalinyaro u xoojisay u baahan yihiin maan baawar bay u baahan yihiin xataa kuwaan wax garanayn waa loo baahan yihin iyagoo maan baawara waxaa kaloo caalam alislaami yaalla khaamaat rakhiisa waxa laaliya waxa macaadin loo baahdo iyo shidaal iyo everything oo talatabaystay laga siisto marka qolo aan diinba iyagu rumaysanin iyagu waxay kuula dagaalamayaan mentalitiga ah dhaqaalay u dagaalamayaan qolyo kale waxay caalam alislaami ula dagaalamayaan geopolitics waxay u arkaan mantaqadan cidda xukuntaa inay dunida xukumi karto xataa hadduu dhaqaale ahaan ka maarmo wuxuu arkaa mantaqadan maamulkeedu waayo wixii uu ingiriisku u bixiyey the checkpointsku waa dee meelahan wadannada marka la soo gelayo laga galo waxay dhahdeen dunida 8 checkpoint baa ku yaalla 7 caalam alislaami ku yaalla kabanama kanaalka ku yaalla oo qura ayaa ka baxsan inta kale 2 turkiga ku taalla mid waa jabal taariq mid waa kan ku yaalla Suez Canal mid waa kanaalkan Hormuz mid waa baabu mandab midna waa maalqaadkan Indonesia ku yaalla waxay dhahaan checkpointska dunida oo dhan gacantooda ku jiraan hadday iyagu gacanta kuwan si dhaba ugu dhigaan dunida way kala gooyin karaan sida awgeed ninka raba inuu dunida ka tariyo iyo badaha dunida uu ka taliyo qadiyada dib baynu uga warabi doonaaye waa inuu checkpointska gacanta ku dhigaa marka kuwa raba xataa le dhaqaalahan uma baahnin oo waanu haysanaa waxay haystaan oo dhamid waxay leeyihiin laakiin inaanu mantaqadan xukunaa baan u baahanay qolo kale waxay leeyihiin xataa haddii mantaqada laga maarmo waxaanan rabin model xadaara oo ka fiican ka iyagu inuu soo baxo dadkani waxay leeyihiin xadaaro values leh iyaga xadaaradoodu waa technology laakiin value ma walato qofka bini aadamka qiimo uguma fadhiyo aan ahayn qaanuunka guud akhlaaqiyaadkii iyo dadnimadii waa dhawata marka waxay leeyihiin ma rabno modelanka iyaga inuu dunida ka muuqdo oo sawkan China iyo kuwan soo baxaya kuwan waxay leeyihiin تنافس dhaqaalaha naga dhaxeeya laakiin xadaaro isku bahayno ma values kuma hayna bay leeyihiin laakiin kuwa kale haday soo baxaan bay leeyihiin waa value cusub oo dunida ku soo kordhaya waa systemkayga ka gedisan walidalik afkaartooda dhan markaan isku soo darro bikulli tawaifin kuwa mutadayiniinta kuwa mulxidiinta kuwa markaad isku soo wada darto waxay leeyihiin meeshaasi inay daciif ahaataa dan inoogu jirtaa